weligaa ma maqashay jabhad magaceeda la yidhaahdo Soomaaliya oo ka dagaalanta qaaradda Yurub? ها magaceeda waxa la yiraahdaa Soomaaliya. Soomaaliyadeen caadiga sidii u qoranto ayuu iyagana magacooda u qorma oo Soomaaliya ayaa la yiraahdaa, waxayna ka dagaalamaan qaaradda Yurub. sida aan la socono waayadan wadanka Ruushka ayaa wuxuu qarka u saaran yahay oo laga celcelinayaa in uu duulaan ku qaado wadanka Ukraine kadib markii Ukraine isku dayday in ay ku biirto gaashaanbuurta NATO. marka wadanka Ukraine waxaa ka jira laba gobol oo raba in ay ka goostaan oo dadkooda Ruush ku hadlaan, waxay raba in ay ka goostaan oo ay noqdaan wadan madax bannaan ama in ay Ruushka ku biiraan. marka labada gobol mid kamid ah ayaa waxaa ka dagaalama jabhad magaceeda la yiraahdo Guutada Soomaaliya. waa Soomaaliya oo caadi ah, haddii aad ku qortid Somali Battalion waxaa ku soo baxaya jabhadaas oo caadi oo halkaas ka dagaalanta. sida aan la socono xalimahay habeen hore madaxweynaha wadanka Ruushka ayaa wuxuu la hadlay shacabkiisa isagoo u sheegay in gobolka ay ka dagaalamaan jabhadda Soomaalida iyo gobol kale uu aqoonsaday laba wadan oo madax bannaan. markii hore waxay ahaayeen gobollo ka tirsan Ukraine, laakiin hadda uu aqoonsaday gobolka ay ka dagaalanto jabhadda magaceeda la yiraahdo Soomaaliya in ay yihiin laba wadan oo madax bannaan. horey ma maqashay adigu jabhad magaceeda la yiraahdo Soomaaliya oo ka dagaalanta qaaradda Yurub gudaheeda? sidoo kale maxaad is leedahay magacaan way ku doorteen Soomaaliya? fadlan saaxiibaya, waxaan si xushmad iyo qadarin ku jirtin ka codsanayaa in aad subscribe sartaan kanaalkayga YouTube-kayga waxaad ka helaysaan profile-kayga TikTok-ga. waa mahadsantihiin. guuleys.